wararkii ugu dambeeyay ee haddii aynu eegno xaaladda ka aloosan waddanka Ukraine xukuumadda waddanka Turkigu waxa ay ku dhawaaqday in ay dhexdhexaad ka tahay xaaladda Ukraine iyo Ruushka gaar ahaan Turkigu waxa uu si cad u qeexay in aanu marnaba raali ka ahayn in waddanka Ruushku uu gudaha u galo waddanka Ukraine isagoo arintaasi ku tilmaamay in ay tahay haddii ay dhacdo ku xadgudub waddan leh xasaanad iyo xuquuq gaar ah oo jiritaan madaxweynaha waddanka Turkiga oo lagu yaqaano in aanu ka leexleexan mowqifka uu qaadanayo ee ku aadan arinta markaasi hortaagan ayaa mar wax laga weydiiyay xaaladda waddanka Ruushka iyo waddanka Ukraine waxa uu sheegay in aan waddanka Turkigu raali ka ahayn waddan kasta oo la weeraro ama gardarro kaga timaado waddan kale madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa rajo ka muujiyay in waddanka Ruushku aanu qaadi doonin wax tallaabo militari ah oo culus oo ka dhan ah waddanka Ukraine kadib awoodda culus ee waddanka Ruushku soo dhoobay xuduudda waddanka Ukraine arrintan ayaa imaanaysa mar uu Recep Tayyip Erdogan waraysi gaar ah siiyay mid ka mid ah kanaalada gaarka ah ee waddanka Turkiga gaar ahaan kanaalka Anatol fiidnimadii Jimcaha waddanka Turkiga oo inkasta oo uu xubin ka yahay gaashaanbuurta NATO haddana xiriir wanaagsan la leh waddanka Ruushka ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu waraysigan ku yiri sidan waxaan rajaynaynaa in Moscow aanay qaadi doonin wax tallaabo militari ah oo ka dhan ah waddanka Ukraine sababtoo ah tallaabadan oo kale ma noqon karto mid macquul ah Ruushka iyo gobolka toonana u wanaagsan waana arrin aan mandaqada iyo caalamkaba u wanaagsanayn dagaalka qarxa Ukraine waxaan furi karnaa wada hadal dhinaca nabadda ah inaga oo isku tagi karna cadaadisna saari karna madaxda labada dal waa Ruushka iyo Ukraine waana haddii ay rabaan sidaasi maadaama aanu annagu ka Turki ahaan mar walba diyaar u nahay in aan wax ka dhexdhexaadino xaaladdan cakiran ee waqtigan aynu ku jirna taagan sidaas ayuu yiri madaxweynaha waddanka Turkigu isagoo waraysigaasi gaarka ah siinay shabakadda wararka gaar ahaan qaybteeda TV-ga ee Anatol madaxweynaha Turkigu waxa uu ku micneeyay xaaladdan in Turkigu uu doonayo in xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine ay soo afjaranto ka hor inta aanay isku bedelin qalalaase dagaal oo culus iyo dagaal khasaare weyn dhaliya isagoo ku celceliyay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu bixiyo taageerada loo baahan yahay Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha waddanka Turkigu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri waxaan rabnaa xasilooni iyo nabadgelyo ka dhalata gobolka waxaan filayaa oo aan hubaa in labada dal ee Ukraine iyo Ruushku ay og yihiin daacadnimada iyo niyadsamida Turkiga hogaamiyaha Turkigu waxa uu tilmaamay in dagaal ka dhex qarxa labada dal aan wax faa'iido ah u yeelan doonin labada dal iyo guud ahaan gobolka midna isagoo carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo lagana fogaado in xoog la isku adeegsado xooggaasi oo buu yiri mar walba dhibaato u keeni kara cid kasta oo gobolka iyo caalamka ah isaga oo ka jawaabaya su'aal ku saabsan mowqifka Turkiga ee ku aadan haddii uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin qaato go'aan kama dambays ah oo muujinaya in Moscow ay weerar ku qaado Kiev Erdogan waxa uu sheegay in waddankiisu uu taageerayo horena u muujiyo taageerada ku aadan madax banaanida dhuleed ee Ukraine bilowgiina xukuumadda Ruushka ay arintaasi ka wada hadleen cidna aanay ku taageeri karin inuu waddan kale gudaha u galo dal kale waxaanu tilmaamay in Turkigu uu mowqif cad ka qaatay tallaabooyinka Ruushka ee wax u dhimeeya madax banaanida dhuleed ee Ukraine gaar ahaan si la mid ah sidii uu u qabsaday gobolka Crimea isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa Turkigu ay ka go'an tahay in aanu waddan kasta ku taageerin weerar ka dhan ah dal kale oo madax bannaan oo siyaadadiisa iyo madax banaanidiisa qaba waana buu yiri mowqif aan isbedbedel lahayn ama leexleexad lahayn waxa uu intaa ku daray waxay u muuqataa in loo baahan yahay wada hadal macna leh si loo dhageysto Ruushka loogana saaro walaaca ammaan ee macquulka ah haddii ay jiraan Erdogan ayaa xusay in uu ku casuumay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin in uu soo booqdo waddanka Turkiga isagoo intaas ku daray sidan waxaan rabnaa inaan qaadano tallaabooyinka qaar muhiim ah annaga oo doonayna in aan kulan laba geesood ah kula yeelano dalkayaga si la mid ah sidii aanu marar horeba ugu kulanay Istanbul iyo Moscow mar uu ka jawaabayay su'aal ahayd in waddanka Iran ay jareen qulqulka dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Turkiga Erdogan waxa uu beeniyay eedeymaha ah in Iran ay jartay gaaska dabiiciga ah ee dhuumaha Turkiga sababo la xiriira deymo culus oo muddo xukuumaddiisa ku ururay
ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay inaanay jirin wax canshuur ah oo ay xukuumadda Tahraan ku leedahay xukuumadda Ankara ee isagu gadwadeenka u yahay, isaga oo sheegay in haba yaraatee wax deyma ah oo badan oo isku gaadhay aanay jirin ee uu yahay heshiis ku dhisan wax isdhaafsi, maadaama ay dhuumaha gaasta dabiiciga ah Turkigu leeyihiin kuwaasi oo sii dhex mara gobollo ka tirsan waddanka Iiraan. waxa uu tilmaamay madaxweynaha waddanka Turkigu in Iiraan madaxweynaheeda Ibrahim Raisi uu isaga oo Erdogan ah mar uu khadka telefoonka kula soo xidhiidhay in arrintaasi ay ka dhalatay cilad dhinaca farsamada ah oo qulqulka gaaska dabiiciga ahina uu ku soo laaban doono muddo 10 ilaa 15 maalmood gudahood ah. ugu dambeyn madaxweynaha waddanka Turkigu waxa uu sheegay in khubaro ka socota wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah iyo waliba shirkadda isla Turkiga ah ee lagu magacaabo Potas ay u direen goobaha ay maraan dhuumaha xandhibmay ee shidaalka gaaska dabiiciga ah ee Turkiga si ay u soo celiyaan xaaladii wanaagsaneyd ee dhuumahaasi, shidaalkaasina uu sidiisii caadiga ahayd ugu soo laabto in ay u xambaaraan dhuumahaasi.